معهدka Universal ee barashada luqadaha iyo IT-ga ee Burco ayaa munaasabadu shahaadooyin ku guddoonsiinayay in ka badan 150 arday oo ka qalin jabiyay luqadaha xisaabaadka iyo IT-ga ku qabtay Hotel City Plaza ee magaalada Burco. Munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Burco iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa ugu horeynba lagu soo bandhigay masraxiyad kooban oo aad u qosol badneed oo ay soo bandhigeen ardaydu, waxaana intaas kadib ka hadlay maamulka iyo macallimiinta macadkaasi Universal iyagoo sharaxay tayada waxbarasho ee macadkaasi iyo marxaladihii uu soo maray macadku. ilaa waqtigu furnaay waxbarashadu isku socotay si habsami leh isagoo mar hore jaan qaadaya tadawuraadka ama horumarka uu adduunku samaynayo waxbarashadu isku salaysan tahay. Haddana waxa loo sameeyay oo maanta shahaado lagu guddoonsiinayaa arday ka kala socota qaybaha kombiyuutarka iyo qaybaha luqadaha, qaybaha accounting financialka iyo qaybaha managementiga. ardaydu waxay ka kooban yihiin 150 arday waxay soo dhiganayeen waqtiyo kala duwan. shahaadada qaadayeen waxa weeye shahaadada dibloma ay qaadanayaan. waxaan ardadan aanu sheegnay inaan u faraxsannahay ruuxaantii sida ay ugu faraxsan yihiin, sida waalidiintoodu u faraxsan tahay maadaama hawl badan soo qabanay ee maanta gabagabeynayno. waxaan ardada ku dardaarmaynaa in la yiraahdo waxaa iyaguna halkaas ka hadlay xubno ka mid ah waalidiin iyo ardayda macadkan oo aad u ammaanay macadka Universal, isla markaasna sheegay inay ku barteen aqoon tayo leh oo ay ku meel mari karaan, iyagoo halkaasna ardaydu ku soo bandhigay qayb ka mid ah aqoonta ay barteen. madaxa dugsiyada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Jaamac Cabdilaahi Cali, gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Xasan Mataan, xildhibaan Cabdilaki Xasan, xildhibaan Qadar Nuux Siciid iyo mas'uuliyiin kale oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa ardayda ku dhiirigeliyay waxbarashada inay sii wataan, macadkana ku ammaanay kaalinta uu ka qaatay kobcinta aqoonta ardayda. dhammaantiin 150 arday ee halka kan loogu xafladaynayo lagu soo gabagabeynayo caawa qalinjabintoodii college-kan Universal. runtii aynu rajaynayno inuu horumar fara badan ku tallaabsado inagoo aanu horuftayadu aanaan muruganayn haddaan nahay waxbarashadii kaalinta uu kaga jiro waxbarashada gobolka. macadkan Universal intaan kolka xasuusto ilaa 1990kii wuxuu ahaa dugsiyadii ugu horeeyey ee gobolka Togdheer ka qaaday. waxaan u malaynayaa ardayda halkan fadhida inuu ka wada daaweyn yahay. anigu jaamacaddan ku jiray markaan halkan idinla dhiganayay dee markaan macadka Universal soo galay gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay macadka Universal, iyadoo ardayduna ay shahaado sharafyo ku maamuseen qaar ka mid a macallimiintii wax soo bartay iyo maamulka macadkaasi. Mustafa Cismaan Magaalo, telefishinka qaranka Somaliland, magaalada Burco.